بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhamaantiina waa idin salaamayaa inta ka soo qayb gashay shirkan oo maanta la idinkugu yeeray si aad la isku xog wareysto wasaaradda iyo hay'adaha international iyo locally wixii ka shaqeeya arrimaha bulshada ee ku sugan deegaanada Jubbaland waad mahadsantihiin si aad u soo jiibteen aad ugu soo qayb gasheen is-xog wareysigan runtii maanta waxaa la joogaa maalin aad iyo aad ay u adag tahay dadka Soomaaliyeed khaasatan dadka tabarta daran dadka soo qaxay dadkii soo laabtay ee ka soo laabtay qaxootiga oo ay ku adag tahay mataqaanaa noloshu ay ku adag tahay ayna u baahan yihiin maanta garab istaag dadka garab istaaggaas laga rabana ay ugu horeyso wasaaradda iyo idinkoo maartay ka socda hay-adaha samafalka waana idinku bogaadinaynaa shaqooyinka kala gedisan aad ka wadaan deegaanada Jubbaland waxaana dhiirigelinaynaa in la laabo maanta ay xaaladdu aad iyo aad maartay u daran tahay iyadoo maartay biyo la'aan baahsan ay ka jiraan iyo abaaro deegaanada Jubbaland deegaanada Soomaaliya oo dhan gaar ahaan deegaanada Jubbaland oo hadda aan ku sugannahay wasaaradda tamarta iyo biyaha adinkoo ah kaadirintii ama shaqaalihii ugu sareeyay hay'adaha ka shaqeynaya ee samafalka ee kala gedisan halka maanta ku sugan waxaan rabnaa inaad si fiican isula meel dhigtaan sidii dadka walaalaha Soomaaliyeed oo dhibaatada abaaruhu ay aad u daashadeen wax looga qaban lahaa shaqadeedana waa intaas annagu ka dawlad ahaan waxaan matelnaa bulshada waxaan la xanuunsanaa dadweynaha idinkuna maartay dadkii oo martaqaana ay sheegay adiga oo walaalihiina ahaa oo garab istaag idinka doonayay idinkuna inaad laba jibaartaan hawshiina ayaan rabnaa marka maanta shirkayagu intaasuu ku aadan yahay shirkaasaan idin furaynay ka wasaarad ahaan waxaana loo baahan yahay jawaab degdeg ah oo waafi ah oo dadka deeqi karo wixii la heli karo karaan ah in lagula dadaalo idinkoo shaqaalihii hay'adaha ah inaad u gudbisaan dadka la shaqeynaysaan baahida dhabta ay jirto iskana wareysataan meelaha la kala geynayo shaqaalaha wasaaradda kuwa technical teamka nala shaqeeya ayaguna idin tilmaamaan meelaha ay baahida ugu badan ay jirto oo si aad u kala qaybsataan oo xooggiina mataqaanaa hal meel uusan u aadin oo ay maartay dadka oo dhan ay wada deeqdo waan mahadsantihiin mar labaad idinka mahad celinayaa soo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen shirkan muhiimka u ah bulshada iyo deegaanka shirkana waa noo furan yahay